waxa uu leeyahay dowladda waxaan leeyahay haddaydan shacabka ilaalin karin waa inaad kaga dhex baxdaan oo aad goobaha shacabka iyo hoteelada ka fogaataan. halka Kamas Faarax Barre oo jooga Gaarisana uu leeyahay aad ayaan uga xumahay labadaasi qarax ee caawa magaalada Muqdisho ka dhacay. intii dhimatay Allah u naxariisto, inta dhaawac soo gaarina Ilaahay afayo dhowr hasliyo. halkani waa London. iminkana Kenya qulqulato la xidhiidhiyay doorashada la isku maandhaafsan yahay waxaa ku dhintay askar booliis ah iyo dad kale. dhanka kale guddida doorashada ayaa galabta warar dheeraad ah ka soo saartay halka ay wax u marayaan. wariyaha BBC-da Ciise Xaaji Cabdulle ayaan ka waraystay. cabdixaafid laba boolis ah ayaa lagu dilay xaafadda Kayole ee magaalada Nairobi xalay 4 habeenimo iyagoo howlo shaqo ku jiro. marka askartaasi la dilay waxaa sidoo kale laga qaatay hubkii ay siteen oo bastoolada ah. booliska Kenya sida ogtahay maalmihii la soo dhaafay waxay isku dhacayeen dad mudaharaadaya oo ka soo horjeedo doorashada madaxtinimada ee ku celiska. xaafadan Kayole waxay ka mid tahay goobaha ay hareereeyeen rabshadaha, balse ma cadda in dilkani uu la xiriiro doorashada. sidoo kale shilkani wuxuu dhacayay iyadoo ay magaalada ay ka jirto xiisad cirka isku shareertay oo ka dhalatay siyaasaddu. ilaa arbacadina ilaa haatan ugu yaraan 3 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay qalalaasaha siyaasadeed ee dalka ka taagan. cabdixaafid goordhaweyd waxaa shir jiraa'id qabtay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinkii xuduudaha dalka, guddoomiyahooda Wafula Chebukati iyo qaar ka mid ah guddigaasi madaxdooda. waxayna sheegeen dadkii doorashada u soo baxay oo codkooda dhiibtay in tiradooda hadda ay gaarayso 48%. marka waxaynu ku micneeyeen tiradaasi halka sida ay ku gaareen. waxay sheegeen marka la eegay dadkii lagu xaqiijiyey qalabka elektroniga ah ee codbixinta iyo tirada guud ee deegaanadaasi ka diiwaangashan waxaa codkooda dhiibatay 48%. sidaas ayay sheegeen. tirinta codadka ayaa iminkana socoto. sidoo kale waxa ay sheegeen in natiijada laga helay goobaha codbixinta dalka ee ka kooban yahay 40,000 waxaa soo diray natiijadooda 37,161 xarumooda codbixin ayaa natiijada laga helay siday guddiga sheegeen. gelinka dambe maalintii shalay aad guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinkii xuduudaha dalka Wafula Chebukati shirka jaraa'id ee uu qabtay waxa uu dib uga dhigay doorashadii madaxtinimada ee ku celiska ka dhici lahayd magaalooyinka sida Migori, Siaya, caasimadda saddexaad ee dalkani Kenya, Kisumu iyo Homa Bay. in dib u dhigistaasi sabab looga dhigay in rabshado waaweyn ay halkaasi ka jiraan, goobahana ay yihiin goobo ay ku xoog badan yihiin mucaaradka. marka guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay inuu cabsi qabo badqabka shaqaalihiisa oo uu ka cabsanaya in la weeraro. sidoo kale cabdixaafid haatan waxaa socoto tirinta codadka lamana filaya in natiijada kama dambeysta lagu dhawaaqo wixii ka horeeyo 30 Oktoobar ilaa 1 bisha November, sababtoo ah guddiga waxa uu sharci ahaan haystaa muddo 7 maalmood kadib maalinka codaynta inuu ku dhawaaqo natiijada. welina goobo qaar ayaan doorashada aysan ka dhicin. ciise xaaji cabdulle aad ayuu u mahadsan yahay. wararkii cayaaraha ayaad goor dhow dhegeystayaal maqli doontaan. halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee BBC London. kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada, dalka, guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba. barta bbcsomali.com waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyaga oo maqaliya muuqaalba leh. warbixinnadii ugu dambeeyey, waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn, bbcsomali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla markaa ay dhacayaan. ka qaybgal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook. booqo oo kala soco moobaylkaaga wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com. mar kasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com. habeen dambe magaalada London waxaa lagu soo gabagabeynayaa toddobaadka Soomaalida oo sanad walba la qabto bishan oo qaybna ka ah taariikhda dadka madow oo loo dabaaldego xilliyadan.
waxaa ka qaybgelaya dad aqoon u leh fanka iyo sugaanta soomaalida iyo qoraa iyo aqoon-yahano kale oo soomaali ah ku kala nool gudaha iyo dibadda dalka. halkudhigga sanadkan ee toddobaadka soomaalidu waa barada iyo barakaca, waxaana lagu daawaday filim ku saabsan taariikhda dadka afrikaanka ah ee ku nool dalka shiinaha. xalay waxaana halka bandhigu uu ka socdo kula kulmay dr jaamac muuse jaamac, dr hodan cusmaan cabdi iyo abwaan siciid saalax axmed. dr jaamac muuse jaamac oo ka tirsan ururka kayd ee ururiya dhaqanka soomaalida ayaa ka waramaya ahmiyadda toddobaadka soomaalida. barnaamijku naguma cusba 10 sano baa imika soo socday, ka horna barnaamijku daartan wuu ka socon jiray. waxaase muhiimaddu ay tahay fariinta ah in ummaddu Soomaalidu qiimaha ay leedahay wax wanaagsan ay leedahay ummadda loo sheego, in la gaarsiiyo oo wajiga dadku u haystaan ee had iyo jeer laga gudbiyo waji ka duwan oo ah wax wanaagsan ay ummaddan leedahay in la gaarsiiyo, hadday tahay dhaqankeeda, hadday tahay hidaheeda, hadday tahay fankeeda, hadday tahay jiritaankeeda iyo hadday tahay kala duwanaanshaheeda oo Soomaalidu sawirada faraha badan ay leedahay iyo quruxda iyo midabada badan ay leedahay in ummadda la gaarsiiyo. marka taa weeyaan aynu u joogna halkan aynu 10 sano u dambeeyayna ka shaqeynayna. waa hagaag macali siciid saalax axmed, toddobaadkan imika waxaa loogu magac daray oo haldhig u ah dalka iyo barakaca. dadka qaar waxay odhanayaan guriga iyo barakaca, bal maxaad ku macnayn lahayd marka hore? anna waxaan idhaahdaa barada iyo barakaca. mar haddii la barakacay, meesha laga barakacay waa baradaadii. waxaynu ku macnayn lahayn, waynu ognahay mar walba waxyaabaha dhaqanka Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed sanadahan ugu dambeeyay ay adduunka ku meereysay intayada halka wada taagan oo aad iminka dacalka ugu dambeeya ee Mareykan ilaa China u kala joogna iyo inta noo dhaxaysa ee Ingiriis iyo dalkii Soomaaliyeed afartayada tana kaaga filan. baradii la deganaa, lagu xididaystay, lagu dhaqnaa, sida looga salkacay iyo salkacaasi dhacay waxa uu saamayn ku keenay dadka, uu saamayn ku keenay niyaddooda, uu saamayn ku keenay hankooda. waa wax culays badan, waa wax xanuun badan, waa wax haddana. hodan, filim ayaad soo bandhigtay taariikhda afrikaanka ku nool shiinaha ayuu filimku ka hadlayay, laakiin filimka waan u soo noqonayaa adiga ka hodan ahaan maxay kuula mid tahay inaad ka soo qayb gasho toddobaadkan soomaalida? horta runtii noloshayda intaan noolaa malaha isbuucan waa isbuuca aan dhaqanka Soomaaliyeed si fiican u dhexgalay. intayda badan dalka kumaan korin, manaan deganaan jirin. toddobaadka Soomaaliyeed wuxuu ii soo kordhiyay horta macno aad u weyn noloshayda oo dadkayga baan dhexgalay, dhaqankayga baan si fiican u fahmay. macno aad u weyn buu leeyahay. dr jaamac, waagii hore ee uu bilowday toddobaadka Soomaalidu inta badan waxaa iman jiray dadka Soomaaliya ku soo kora ee waddanka Ingiriiska iyaga oo 20 ilaa 20 jiro ah yimaada, laakiin iminka dhalinyaro badan oo qaarkoodna ku dhasheen halkan, qaarkoodna ay ku koreen ayaa yimaada. sidee buu isu bedelayaa toddobaadka Soomaalidu? wuxuu isla bedelayaa wadciga sidii Soomaalidu u korayso, sida adduunyadu u koraysay ayuu isla bedelayaa. shalay halka waxaan kaga hadlaynay waxyaabihii aynu hidaaya dhaqanka u lahayn si loo badbaadin lahaa. badbaadadaasi waxa la socdaa in ummaddu way koraysaa. muhiimaddu waxa weeyaan wadci cusub bay gelayaan, wadciga cusub saynu inaga ula jaan qaadi lahayn. dr hodan, haddii aan ku imaado filimkii aad samaysay qaybta laga daawaday, filimkan xayeysiintiisa markii aad Facebook barta ay bulshada ku kulanto aad soo gelisay, wax badan baa laga hadlay. waxyaabaha laga hadlayna waxa ka mid ahaa in la arkay inan Soomaaliyeed oo afaf badan ku hadasha, carabidaad ku hadasha, ingiriisida, shiinaha. maxaa ku dheer? afar af baan ku hadlaa. adiga oo koobaya afarta af, bal habeen wanaagsan ku dadka Soomaaliyeed ee barnaamijka dhageysanaya. shiinahana ku bilow. habeen wanaagsan shiinaha waxa lagu yiraahdaa waan aan, af carabigana waxa lagu yiraahdaa Leila Saciida, af Soomaaligana waxa lagu yiraahdaa habeen wanaagsan, af Ingiriisigana waxa lagu yiraahdaa have a good night. toddobaadka Soomaalida oo habeenka Axadda dhamaanaya, waxyaabaha kale ee lagu soo bandhiga waxa ka mid ah fanka, buugaagta ay qoreen qorayaal Soomaaliyeed, qorayaal ajnabiya iyo waliba heesaha Soomaalida. waa hagaag haddii aynu intaasi ku dhaafno toddobaadka Soomaalida.
qodobadii wararka ugu weynaa ee aad maqasheen waxaa ka mid ahaa 2 qarax oo waaweyn oo ka dhacay hoteelka Naasa Hablood 2. hoteelkan ayaa waxaa ku yaala bartamaha magaalada Xamar. tafaasiisha dadka dhintay iyo dadka dhaawacmay way soo baxayaan, hase ahaatee ilaa imika dhimasho iyo dhaawacba way jiraan. qaraxan ayaa waxa uu imanaya iyadoo 2 usbuucun ka hor isgoyska Soobe uu qarax weyni ka dhacay, halkaasina ay ku dhinteen dad 300 tiradoodu ay kor u dhaafisay, dad kale oo badana ay ku dhaawacmeen. halka aad dhegeystayaal wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da. dabcan mar kasta waxaad naga daalacan kartaan bartaanu internetka ku leenahay ee bbcsomali.com. bal imikana wararka isboortiga siiba cayaarihii galabta iyo caawa ee horyaalka kubadda cagta Ingiriiska waxaa inoo haya Maxamed Axmed Daysane. cayaartii ugu horreysay waxay dhex martay Man United iyo Tottenham, taasoo cayaar aad iyo aad u xiiso badan la filayay, laakiin hase ahaatee cayaartu waxay u ekaad mid labada koox aad iyo aad isku difaacaysay. kadib markii qaybta dambe laisku soo noqday ayaa 81 daqiiqo markay maraysay ayaa Marshall kubad uu ka dhaliyey Tottenham. hase yeeshee kubaddaas inta uusan dhalin waxaa fursad aad iyo aad u qurux badan helay Dalla Cali, taasoo uu ka faa'iidaysan waayay. kadibna Marshall ayaa isla markii kubaddii heye uu soo gamay ayaa Marshall madaxa loogu dhigay, kadibna kubaddii uu si fudud u dhaliyey, waxayna ku dhammaatay 1-0 oo Man United ay ku adkaatay. dhanka kale waxaa wada cayaaray Arsenal iyo Swansea ayaa gool la hormartay. Lucas ayaa gool koowaad u dhaliyay 22 daqiiqo markay maraysay. hase yeeshee markay 51 daqiiqo maraysay Klasnik ayaa Arsenal gool u dhaliyay. goolkii guushana 58 daqiiqo markay maraysay ayaa Ramsey u dhaliyay. Arsenal 2-1 ayay ku adkaatay. Crystal Palace iyo West Ham ayaa labada kooxba 2 koox oo hoose London isla degan cayaar aad iyo aad u xiiso badan soo bandhigay. qaybtii hore 2 gool ayaa waxaa la hormartay West Ham, taasoo Hernandez uu u dhaliyay iyo Ayew ayaa 2 gool u kala dhaliyay. hase yeeshee markii laisku soo noqday ayaa kadib Milanovic ayaa 50 daqiiqo markay maraysay gool u dhaliyay, iyadoo West Ham guushi u dhowdahay ayaa Saha 90 daqiiqo markay maraysay goolkii barbardhacada u keenay Crystal Palace. Crystal Palace waa kooxda ugu hooseysa, 1 badis iyo 1 barbardhac keliya ayay haysataa 4 dhibic. dhanka kale Liverpool iyo Huddersfield ayaa is heshay, taasoo labada macalin kulub iyo macalinka Huddersfield ay niman saaxiibo ah oo isla koox wada cayaari jiray Mainz isla markaana isku qol ahaayeen. kooxdii Dortmundna markuu kulub oo watay gacan yare ayuu u ahay ayaa maanta is helay. waa markii ugu horreysay ay Premier League Ingiriiska isku helaan, sida labadoodii ay u wada yimideen 2015. hase yeeshee Huddersfield oo lagu yaqiin difaac adag, taasoo ay ka soo adkaadeen Man United ayaa 3-0 looga adkaaday. Sturridge, Firmino iyo Waldman ayaa 3 gool ka kala dhaliyeen. Liverpool oo cayaartii dhawey Tottenham 4-1 uga adkaatay guul ayay la tagtay. dhanka kale waxaa cayaar aad iyo aad u xiiso badan dhex martay Watford iyo Stoke oo aad iyo aad u liidatay ayaa guushii 1-0 ku raacday. Fletcher ayaa goolka qaybta hore u dhaliyay 16 daqiiqo markay maraysay. waxaa kaloo cayaar aad iyo aad u xiiso badan dhex martay West Brom Albion iyo Manchester City oo hogaanka horyaal ku haysto, taasoo la celila ayaa gool dhalinta 32 gool ayay dhalisay, laakiin maanta 3 kale ayay ku dartay kadib markii ay goolasha u dhaliyeen. Sani ayaa barbardhac waxaa ka dhigay Rodriguez West Brom. hase yeeshee Fernandinho ayaa goolkii 2aad u dhaliyay, goolkii 3aadna waxaa u dhaliyay Sterling. 3daa marka lagu daro 35 gool ayay dhalisay, 6 goolna waa laga dhaliyay. 9 cayaar ayay cayaartay, 8 ka mid way badisay, 1 barbardhacna way gadisay. hogaankana hadda 5 dhibic ayay hogaanka ay ku haysaa. maxamed axmed daysane oo inala socodsiinayey wararkii cayaaraha u dambeeyey. dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyana 2 qarax oo xoog leh oo dhowr saacadood ka hor ka dhacay magaalada Muqdisho oo qiiq fara badan uu hawada galay, waxaana magaalada badankeeda laga maqlayay weeraradan Naasa Hablood 2 oo ay shabaab ku sheegteen. dabcan wixii ka soo kordhana waxa aanu idinkala socodsiin doonaa bartaan internetka ku leenahay ee bbcsomali.com iyo idaacaddeenna Brito haddii ilaahay raali ka noqdo. sidoo kalena wixii idin dhaafay bbcsomali.com ayaad kala socon doontaan.
barnaamijka waxaa caawa isku soo dubariday cabdinuur sheekh maxamed isaxaaq aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idinla socodsiinayey warkana waxaa idinla socodsiinayay aadan maxamed cabdi saalamiin sidoo kalena cayaaraha axmed cabdinuur maxamed cabdi daysane iyo cabdirasaaq sheekh maxamed suraad ayay ahaayeen mar kastaba ra'yigiina waxaad noogu dhaafi kartaan barta aanu facebooka ku leenahay iyo weliba barta internetka ee bbcsomali.com oo haddii ilaahay raalli ka noqdo aanu ka soo qaadan doono intii aanu ka haleelo tan iyo berito 7 subaxnimo xilligiina sidaas iyo nabadgelyo